halkani waa janalka cilmi eviye aad uga barateen soo gudbinta casharada maadooyinka santifiga ee dugsiga sare manhajka dawladda federaalka Soomaaliya waxaana alaaba halkan idinka soo jeediyo anigoo ah Sunna Abdulsaaq Maxamuud degmada Balcad gobolka Shabeellada Dhexe waxaan idin sheegayaa ardayda inay ku dadaalaan maadooyinka loogu dhigayo dugsiga si ay u yeeshaan mustaqbal wanaagsan una qaadaan hankoodana ay gaaraan waxaana gudagali doonaa qaybtii afaraad ee casharadeena inoo socday introduction to biology oo ah importance of studying biology ahmiyada ama muhiimada loo baranayo biology-ga hadii aad barato waxyaabaha aad qabsan lahayd waxyaabaha aad noqon lahayd ayaa lagu bartaa iyo sida uu ku anfacayo qodobka labaad the knowledge cilmiga ayaa la yiraahday acquired from laga helay ayaa la yiraahday the study barashada of biology-ga can be very helpful wuxuu aad waxtar ugu yeelan karaa in solving xalinta environmental problems dhibaatooyinka ka dhaca deegaanka such as sida ayaa la yiraahday food shortage cunno yaraanta poor health service adeega caafimaadka oo aadka u liita pollution hawo wasaqowida and environmental degradation iyo xumeyn iyo deegaanka oo xumaada the knowledge cilmiga acquired from laga helo the study barashada of biology-ga can be very helpful wuxuu aad mid waxtar la ugu noqon karaa in solving xalinta environmental problems dhibaatooyin ka dhaco deegaanka aad degantahay ama deegaanka aan ku nooshahay sida food storage يعني cuntada oo yaraata health poor service adeega caafimaadka oo aad u liita pollution hawo wasaqowida and environmental degradation iyo deegaanka oo xumaada qodobka saddexaad the study barashada of biology-ga can grant one an entry waxay ku hibeen kartaa ama ay ku siin kartaa inaad gasho into a various careers shaqooyinkan kala duwan such as sida medicines daawooyinka veterinary medicines daawooyinka xoolaha yani inaad xanaanada medicine hadaa barato inaad DR noqoto ama dhakhtar noqoto veterinary medicine hadii aad barato daaweynta xoolaha aan noqoto veterinarist aan noqoto dhakhtarka xanaanada xoolaha aan noqoto animal husbandry inaad barato dhaqashada xoolaha animal husbandry dhaqashada xoolaha horticulture beeraha inaad barato and dentists inaad barato aan noqoto dhakhtarka ilkaha and dentists inaad noqoto dhakhtarka ilkaha the study barashada of biology-ga can grant one an entry waxay ku siinaysaa inaad gasho mid ka mid ah into various careers shaqooyinka kala duwan such as sida medicine ayaa la yiraahdaa daaweynta caafimaadka sida dhakhtar inaad noqoto oo kaleeto veterinary medicine daaweynta xoolaha oo aad noqoto dhakhtarka xanaanada xoolaha animal husbandry dhaqashada xayawaanada horticulture inaad noqoto beeryahan dadka beeraha ka shaqeeyo agriculture ka qayb kamida waa horticulture-ka oo lagu barto vegetables-ka iyo fruits-ka iyo miraha lagu barto and dentistry iyo barashada ilkaha sidoo kale waxaa loo yaqaan dental medicine waa la yiraahdaa qodobka afaraad the study barashada of biology-ga leads waxay kugu hogaaminaysaa to the development horumarta of scientific skills iyo cilmi science-ka the study barashada of biology-ga leads waxay kugu hogaaminaysaa to the development horumarka of scientific skills xirfad cilmiyeedka ayaa la yiraahday which are very useful kuwaas oo aad waxtar ugu leh in life nolosha which are very useful kuwaas oo aad waxtar ugu leh in life nolosha this include kuwaas waxaa ka mid ah the skills xirfadaha of observing indenta identifying aqoonsiga recording diiwaangelinta classifying kala saaritaanka
measuring cabirida, analyzing lafagurida, and evaluating iyo qiimeynta. This includes kuwan waxaa ka mid ah the skills xirfadaha of observing evidence, identifying aqoonsiga, recording iyo wixii la soo indhindheeyay ama la aqoonsaday in la diiwaan geliyo, classifying kala saaritaanka, measuring in la cabiro, analyzing in la faguro la falaqeeyo laga hadlo saan waa la yiraahdo, and evaluating in la qiimeeyo. habkaas waxaa isticmaal dadka research-ga sameeyo ama cilmi baarista sameeyo. These skills xirfadahan can able us waxay anaga noo ogolaanaysaa to learn inaan badano how to make informed choices sida aan u xulanayno dooqeyna and lead an improved life aan ku hogaamin lahayn nolol horumartay. These skills xirfadahan can enable us anaga waxay noo ogolaanayaan to learn inaan barano how to make sida aan u samaysan lahayn informed choices xulashooyin dooqa xulashooyinka through the study of biology iyadoo la marayo barashada biology-ga. We learn waxaan ku baranaa the causes of animal, plant and human diseases waxyaabaha sababo cudurrada ku dhaco xayawaanada, dhirta iyo bini'aadamka, and how best these diseases can be prevented iyo sida ugu wanaagsan cudurradan looga hortagi karo and cured laguna daweyn karo, and how best iyo sida ugu wanaagsan these diseases cudurradan can be prevented ee looga hortagi karo and cured loona daweyn karo. halkaas waxaa noogu eg qaybtii afraad ee importance of studying biology, ahmiyadda loo baranayo biology-ga. waad ku mahadsantihiin daawashada iyo dhegeysta casharadeena taxanaha ah. ha ilaawin inaad subscribe, share, like saarto. waxaan idin leeyahay